بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليه الشيسة مليه الكرام، dadka Soomaaliya waa dad muslimiin ah oo ahlu sunnah oo shaafiiciin oo hal manطقة degan oo musaharo iyo walaalnimo iyo ehel iyo wax badan ay ka dhaxayaan. laakiin markay dawladnimo iyo nidaam iyo wax yimaadeen iyo xoog u yimid waxaad moodaa ummadii maxaa lahayd ay kala dhaqaaqday oo siyaasiyiin ay madax isu geliyeen. ninka Soomaaliya meeshuu rabo duu tago cid maxaa la cunsuriyeenaysa ama wax u geysanaysa ama dhibaato gaarsiinaysa خاصة أنتي حرنمada la raadinay ma ay jirin. ninka Soomaaliya meel walba adduunka uu tago oo Soomaaliya uu joogto wala soo dhaweeyay oo wala sharfi jiray oo wala qiimeey jiray. markii xornimada la qaatay wax badan baa isbedelay oo nimankii siyaasiyiinta oo marka dadka xoogaa ilbaxnada uga dhawa ama Talyaani Ingiriiska la shaqeysan jiray ee xukunka loo dhiibay waxay bilaabeen inay ummadii ay ku kala qaybiyaan kursigii iyo madaxnimadii iyo xukunkii ay nasiibka u helaan. marka waxay noqotay in qabaa'il iyo dadkii loo kala qaybiyo xaafado qabiilka dhexdiisa la kala qaybiyo oo madax la isu geliyo si kursiga loogu sii fadhiyo. dawladii maxaa lahaa madaniga way baabaday 69kii problem iyagu ay abuureen daraaddeeda askar baa meesha tin iyaguna wadadii un bay martay laakiin way qurxisay oo maxaa lahaa si kale u dhigtay. marka laakiin wali inay ummadii madax isu geliso oo isku dirto wuxuu aashanigeedii arrinkeeda kadib burbur baa yimid waa la kala guuray xaafadaha loo kala baxay gobolada loo kala baxay wadii way kala dhaqaaqday kadibna dawlad goboleedyada yimaadeen dawlad walbana calan iyo maxaa lahayd askar gooniya iyo wax iyada gooniya ay u samaysatay. marka mujtamacii Soomaaliyeed niman siyaasiyiin ayaa kala qobay mujtamac naftiisa mujtamac diyaar u ah waa in la kala qoqobo asana naftiisa raalika in la kala qoqobo asana naftiisa raalika in waxaan ay dhacaan asana naftiisa maxaa lahayd ninka daalimka ee tolkiisa reerkiisa aan diidi karin oo noqon karin waniyo waxa sameynayso wax shariicadu iyo diintu ay ogashay maaha waxa sameynayso wax dadnimada ku wanaagsan maaha. darfan marka waxay noqotay in dadkii la kala dhoobo hadda waxay gaartay dawlad goboleedo nin walba uu soo arko inuu madax banaan yahay ama u dhaqmo sidii dawlad madax banaan oo cid wax ku disan karta ajiro in la tuutuugo mooyee aan waxba laga qaadi karin. ummadda qaalibkeeda waxay rabtaa wanaag, ummadda qaalibkeeda waxay rabtaa inay wax socdaan, qaalibkeeda waxay rabtaa inay wax hagaagaan, laakiin waxay ku xiran yihiin oo ay u xirxiran yihiin nimanka siyaasiyiinta oo xarooyinka ku gashaday oo aan oran karin waxa sameeynaysan waxa weeyaan waa khaldan. marka ummadan haddii wada fiican loo maro oo dad khiyaar hoggaanka ay noqdaan oo dad khiyaar ay wax ka shaqeeyaan ummadan waa la isu keeni karaa wayna maslaxoobi kartaa wayna isu imaan kartaa wayna heshiin kartaa waxna way qabsan kartaa. laakiin inta nin siyaasi ah oo danaysta ah inta nin hoggaanka maxaa la raadinaya oo danaysta ah inta nin maslaxa ay ugu jirto in dadku kala qoqobnaadaan uu ummadda horjoogo uu yahay ama qayb ka mid horjoogo uu yahay ama tolkii reerka u mathilayo way adkaanaysaa ummadda tan inay isu timaado. marka haddii la rabo ummadda inay isu timaado awal horta waa inay ilaahay u tooba keentaa waa inay ilaahay u noqotaa waa inay maxaa lahaay alla iyo rasuulkiisa waxay yidhahdeen waa inay ogolaataa. inta taala la'yahay way adkaanaysaa ummadda inay isu timaado. ummaddu waxay dib u heshiisiin u baahan tahay wali ummadda inta la isugu حتى قبيل والب دحديسه ayaa wuxuu u baahan yahay dib loo heshiisiyo xaafad walba gudaheeda ayaa wuxuu u baahan tahay inay dhexdeeda heshiiso markaas ummadda dimirkiisa la heshiiso taa wali ma ayaa dhacay cid isku daysana ma jirto. marka horta waxa laga yaabaa heshiisiin niman siyaasiyiin oo wax xumaati ayaan ka dhaxayn hoteelada wada seexda oo raashinka wada cuna oo waliba sharikaad wada leh oo dalada isku wada xiran tahay dadku ay u tusaan inay iyagu matelayaan oo meelaha ka qayliyaan habeenkina ay wada maalintii wada qadayaan oo wada casheeyaan ama tijaaro ay wada leeyihiin. laakiin dadka xaqiiqada ee dhibka loo geystay ama la dulmiyay ama la waxad gudbay xaq waxay u leeyihiin ama inay xuquuqdooda helaan xaq waxay u leeyihiin in loo abaal gudo xaq waxay u leeyihiin inay wanaag ay helaan xaq waxay u leeyihiin in xuquuqdooda loo celiyo ama xaq waxay u leeyihiin inay hataa cafin karaan wax dhibaato oo maxaa la laakiin intaas oo dhan ma la yiri. marka waxaan is leeyahay ma la heli karaa Soomaaliyeed waa la heli karaa waxa la heli karaa marka Ilaahay loo noqdo marka diinta lagu dhago marka wuxuu Ilaahay ogolaaday la ogolaado wuxuu Ilaahay diiday maxaa lahayd laga dheeraado waxay niman kartan marka dadka xuquuqdoodii lahaa nin walba asagoo wada uu keeno ilaa xuquuqdooda ma dhacayso ilaa qofkii u lahaa haddii xataa uu dhinto aakhira way tagaysaa maxaa lahayd الحقوق لا تسقط بالتقادم
سما ديران صدق سنة كسورتي أفرت كسورتي ما حقوقها ولي ويتالله إلى قيام الساعة إلى قف فرع وكلا قاوة وحي تدخل حيسوي مع كرم إن دتكن هجاك القرية أي نقدان دد خيارة ويأذت لكن إن الراديو أو له دد خير والبا أما حافظ والبا إن خياره أو وناقله ومده أرجو ونقله waxay noqon kartaa umaysimaa in wax yarka ay dawladnimada iyo magac lagu helay in umada si wanaagsan loogu kala qaybiyo waliba dadka baahan oo dhibaatada qaba oo danyarta la hormariyo oo wax loogu qabto sababtoo maanta waxa dhacaysa wixii la helo oo dhan dad ladan dad guryahooda u dhisan yihiin fayrusooda u shidan tahay ee maxaa la lahay raashinkooda u karsan ayaa loogu daraa kuwii fuqaradana faqrinimay ka sii qaadayaan way sii baaba'ayaan Soomaalidu in dadka la wacyi geliyo إن ذلك الله شجع وذجرك وأنا أقوله إن ذلك الله تصو إن كان فوق الناتا هي كلام مقناشة إن واحد بعتك اللي سموه إن واحد كيف إني والله لو احترامه به هذا وله كان محل أقولها الرسايا كان محل رجع سمينيا كان محل عوض سمينيا كان بيرتا فلانايا كان غير اللجنات كان دكان ليدا كان بابور كوتا نيم والله مهم ليس لو احترامه أو لو شرفه أو لو يهرج اليوم لكن هذه اللي هذا ساساتها هذا واحد سميسا ذلك لو كلا فوقه دبعت بينهم ومدو أدوك وحويان تنوع الدايفرسيتي ذلك إنه كان دوين وقوة يحوق مكيرا لكن مركز الله أركو ذلك عن أمضى قلنا حين وحيوار كان دويناته إنه سواء الطهي إنه محل أي كيني ذلك ده يسوي ماذا إنه يحكوا يكون مركز ذلك إلا كلا قوقبه وحافظ الله كلا حيرا أي مسحوجه مركز أمضى وأمض مسلمين وسكو محل عن ميل عن هالميل كود يمد وواحد فرنتي أمضى حين لكن ددنا لا سبحان الله أي كلا جوينيا مرك ولي وقت قاعد بوديري ولي جد قاعد بوديري ولي هاوش أضرب بنتك وحب عن دد فلنتيرا دد إلهي كعب سنايا دد درك على اللهين دد محل الله أتهجن إلى أمضى محل الله إلهي وتقولين لا خير في كثير من الجوم إلا من آمن بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم إن دل له مصلحين دل له وإصلاحين دل له عندنا كلهين oo raba inay wada isu keenaan inay maxal la warfiic u kala qaadaan inaanay isku dirin inaanay madax isu gelin oo ay ka dhigaan ummad hal kaliya marka sidaa la helo wax badan baa noo hagaag kara laakiin inta nin walba meel uu xirtay ama nin walba uu rabo inuu maxal lahay ummadan isku imaan qarto marka dadka mas'uuliyiinta ama dadka ummada horkuwa ha laga arko inay iyagu daacad ka yihiin in ummadda tan ay isu timaado hadii aan iyaga laga arkin wax imaanaya ma jiraan ilaahu ummadeena hagaaji ilaahu dambigeena dhaaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.